barta cilmiga sababtoo ah haddii aad hodan noqotaan cilmigu wuxuu idin noqonayaa dhamaystir haddii aad faqri noqotaana cilmigu wuxuu idin noqonayaa maal qofka weligiisa wuxuu ahaanayaa caalim inta uu cilmiga raadinaya mar haddii uu u maleeyo inuu wax bartay markaas ayuu jahliga bilaabmaa cilmigu waa sida dhulka oo kale suurtagalna inooma ahan inaan helno cilmigoo dhan ilaa wax yar oo ka mid ah maahane fadliga cilmiga waxaa kugu filan haddii loogu waco qof aan ehel u ahayn cilmiga waa uu ku farxaa foolxumada jahligana waxaa kugu filan inuusan jirin qof ogolaanaya in jaahil loogu waco xitaa haddii uu jaahil yahay qofkaas cilmi marka ugu horeysa waa aamusid marka labaadna waa dhegeysi wanaagsan marka saddexaadna waa xifdis marka afaraadna waa ku camal falid marka shanaadna waa faafin weel waliba wixii lagu shuba ayuu ciriir la noqdaa marka laga reebo wiilka cilmiga asaga mar waliba wax lagu shubo wuu waasacaa qof waliba waxaa lagu qiimeeyaa wuxuu yaqaano wax baro sababtoo ah ma jiro qof la dhalay asagoo cilmi leh walaalna lama ahan cilmiga qof jaahil ah cilmigu waa daawada sunta khuraafaadka nin waliba oo sharaf leh lama dhalin asagoo cilmi leh